رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب waxaan bilaaban doonaa insha Allah barnaamijka waxaanu ku bilaaban doonaa hadii la yiraahdo inaynu akhrino xeer hoosaadkii intuu tartanku socdo wixii ka reebanaa xeer hoosaadku wuxuu sheegayaa wad soo akhrideen WhatsApp kale oo la idinku wada diray wada garanaysaa way maanta kol hadduu tartankii labaad wareegii labaad la soo gaaray maanta su'aalihii ma wada noqon doonaan multiple choice su'aaluhu saddex nooc bay isku jiri doonaan direct equation iyo multiple choice iyo buuxi meelaha bannaan su'aalaha waxa ka horeyn doona ishfaaq sida nasiibku siiyay waxaad sheegaysaa sheeg gobolka ay ka tirsan tahay degmada xeego oo wadaniyad tan su'aasha isku day waa togdheer haddaan isku day waa togdheer baan wada eegi doonaa su'aashaasi saas ayay qalad ku tahay waxaanay sax ku tahay gobolka awdal bay ka tirsan tahay degmada xeego su'aasha xigtaa waxay oranaysaa sheeg qodobka sheegaya xorriyadda banaanbaxa iyo rayidhiibashada saxaafadda iyo warbaahinta kale ee ku cad dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka dastuurka inta ka hadlayd sheegaysaa halka time kana ilaashada 3 minute oo kaliya haystaan بسم الله هذا نسكت ضيو جوابتها سؤال شيء قضب كتضبي السلطنات قضب كتضبي السلطنات بينو يجي دونا وقضب كلبي السلطنات سدا سايا غلط كتاي واي سؤال حكتا اشواق ولا واي سؤال حكتين ugu bidoona waa su'aash waxa yeelan doona ishfaaq su'aashana waxa oranaysaa xubnaha golaha guurtida waxa dhaariya ba gudoomiyaha golaha guurtida ta gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka ja madaxweynaha ha gudoomiyaha maxkamadda jawaabta su'aashaada isku dayo waxa abaynu eegi doonaa oo gudoomiyaha maxkamadda sare aynu eegi doonaa sidaas ay sax ku tahay waxa oranaysaa sheeg gobolka ay ka tirsan tahay degmada xagal waqtiguna wadin su'aasha jawaabteedan isku dayno waa saaxil weyn gobolka saaxil baynu wada eegi doonaa su'aashaasi sidaas ayay sax ku tahay taya yeelan doonta sida ku cad qodobka 116aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland tirada gudida culimadu waa ba 10 xubnood ta 11 xubnood ja 12 xubnood ha midna intaan isku dayo su'aasha jawaabteeda waxa weeyaan ta oo 12 xubnood ta oo 12 xubnood waxaanu eegi doonaa ta oo 12 xubnood sidaas ayay sax ku tahay waayahay su'aasha xigteen ugu gudban doonaa hadii Ilaahay yiraahdo su'aasha xigta waxa yeelan doona ishfaaq su'aasha xigta waxa oranaysaa sida ku cad qodobka 38aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland muddo kordhinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka waxa waajib ka saaran yahay ba golaha guurtida ta golaha wakiilada ja golaha xukuumadda ha oo ba haddaan isku dayo waa ta golaha wakiilada ta oo golaha wakiilada inuu eegi doonaa ta oo golaha wakiilada inuu eegi doonaa sidaas ayay qalad ku tahay waxaana sax ku tahay ba oo golaha guurtida su'aasha xigta inuu gudbi doonaa waa yahay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka ka hadlaya ciqaab iyo dambi waa ba qodobka 27aad ta qodobka 23aad ja qodobka 26aad ha qodobka 25aad بسم الله سؤال جوابت هذا اسكو دايو waa biyo 7aad ba oo qodobka 7aad aynu eegi doonaa sidaas ay qalad ku tahay waxaana sax ku tahay qodobka
لحيلاتنا جادة سؤال حكتين وجد بدورنا وحورنا إسا إشفاق بس كل سؤال سيدا كعد دستور كجمهورية الصومال قضب كبقولية الطبات قد إذا عدالة وهيدا داش أنت كان من قضب كدستوري قال أي الله قدرية وهيد حردجنتا هيدا حردجنتا كان من هالكا ونو يقدرنا إن حردجنتو كان من تهاي وحوي هيدا هو جامسة مامولكا كرسوركا سيداسي أي غلط كتاي waxaan ku sax ku tahay hogaamisa maamulka garsoorka marka hore waxaan bogaadinayaa kooxda ishfaaq oo hablo u badan hadiya jeer hal inan baa ku jira kooxda maanta waliba hal arday baa ka maqnaa afar bay ku joogaan waa koox dadaal badan kooxda ishfaaq waxay haystaan hal darajo ama hal dhibic aad iyo aadna way u mahadsan yihiin kooxda tayo oo iyagana aad u bogaadinayo oo inama u badan oo laba hablood oo kaliya ay ku jiraan shantoodiiba way dhameystiran yihiin shantii su'aalood la weydiiyay laba kamida way la seegeen saddex kamida aan iraahdo laba kamida way la seegeen saddex kamidana way saxeen marka sidaa darteed saddex dhibcood bay haystaan kooxda tayo waxaanay u gudbeen wareegga saddexaad dhammaantiinna waad mahadsantiin runtii waa wada guulaysateen sidii aynu caadadaynu ahayd hore markii horeba waxaynu geli doonnaa insha allah haddii ay ka dhigo waxa weeyaan waa wareegyadeenna kale marba marka dambaysana waad kolley waad arkaysaa anu su'aalo way sii adkaanayaan marka insha allah waxaan rajayn doonnaa iyagoo haddana si adag idinkuna dadaalkiinu wuu sii muuqanayaa inaad wax badan soo akhrideen waana ugu talagalay inay sidaa noqdaan haddii ilaahay ka dhigo marka waa idin mahad celinaa aad iyo aad baa mahadsantiin markasta dee waxaa la garan laba nin kama wada qoysle qaybun bay guushu raacdaa walaaladayna waxaan uga mahad celinayaa sida quruxda badan lee u dadaaleen sharafta leh inoo dhegaysanayeen tartankana uga qayb qaateen sidoo kale xubnahaygan kale garbahayga fadhiyana iyagana uga mahad celinaya dadaalka badan muujiyey wareeggii saddexaadna u gudbay insha allah waxaan rajaynayaa halkaa iyo meel kasi sarreysaba inaan gaadhno guushanaan insha allah koobkana soo qaadno dhammaantiin aad baa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu